macallinkii waa ninkaanayto dadka waxaa kaftanka si qaldan u arkin amana macallinkii marna saaxiibkii oo xilli walba xamar joogo ana haday aragtay amana loo aragtay aad iyo aad diinidii mar walba tala siiya waa iska warqabnaa taleefka iska wacnaa inaan social media tala ka siiyana horta way ma fiicna laakiin talada aan siin lahaa horta caadi u sheegay ay macallinkayga markii warkiisa mudida markastana waa qaadanay haddana waa qaadana amana waa nisanahay inuu wax wanaagsan sheegay mooyeen wax wanaagsan sheegay oo ogahay daciibkay diini maxamed daahir saddex marka badan fariin u diray fariintiin waa aqbalay الأولتيمات هو إسكانه ماشي حمر واحد إسكانه أنا أقول فرحنا إنه الماضي عرجينا لكن إنه ثلاث أنسي وغروق قاطع وبدأ دب وصل لابطة أو performance سيسي وعنا بروح البطنة إنه أصلي جدا قرب دين سلو وني كان هذا اسكب عشان قبل الجو وقل وتو فريم بصدري وأعرف تفرع أمنا وكور وركسناي لكن هذا أنا أسوي حكي دم بس اللي حسبتهم بدونا وغالب بدنا كايا صوف السحر بقى مركا معلكي واني كانيتو dadka waxa kaftan kaliya si qaldan u arkin amana macallinkii oo marna saaxiibkii oo xilli walba xamar joogo ana haday aragtay amana loo aragtay aad iyo aad marka yaa miskeenka dir macallinkii amana adina qalilna adiga waa fiyaa weyn غيري عملنا دين كان وصل باشالي يعني قولنا كده ريفرشمنت في عنو سوقاتي تدون سؤال اسمه ديني وحدين محلو أركلا عيارة ودنك تلم حسين عاو كل جوا ديني دي مرة والبعض تلسيا واسكا ورقبنا تلافك اسكا وعنا لنا السوشيال ميديا تلاك سيرة هورتا واي مفعنا لكن تلاد أنسي لها هورتا عادي أول شيء صح أنا لو علينا خطوات الجوجي معلا نكا صاحبي وبرا ولاركي واي ترى وعن سيلها لكن هو أصلا كيف دولهم أنا ورك جرانت كذا كذا أقول. ويا ديني معنى كتلوكسي حد نسفي عنه سو فريفريشمنت سوقاتي عدي عنه وسو أنتي سومالنا سومرتي. أنا معلك يا مركي وركيس مديدة ما استنا وقادنا حتى وقادنا أمنا ونسنا هاي إنه واحد ونكسني شيء مو واحد شيء أو هاي أقواك. تبرر حسب ديني يعني ديني وصودا ما شهادي بالحس عنه سوقاتي. maxaa ku dhacay goorma la arki doono horyaalka taageerayaasha dadka aad ku jecel maxaa u sheegay wallahi niyo taas markii loo gudbo aniga horta kubadda cagta inaan zaad oo jeclahay markii hore aan ingiriis family hayste oo aaba ugu dhigna aabana oo fasaxay arrin kale oo arrintaas ka darnaa jirto insha Allah iyadana inaan xalliyo rajayna hadda xallin waayna inaan dadweynaha u soo bandhigo rajayna